بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا الكيبة دابضيال بلا جوجتانا waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga rajada iyo kala ayaad soo xilbas shaashada caalamiga rajada TV aad ka daawataa waa barnaamij xiiso badan oo aan idinku soo gudbino qodobo dhowr oo xiiso badan qodobada aad ku daawan doontaan saaka barnaamijka waxa qayb ka noqonaya khulfoofka caga baruur noolaa 20 qarni ayaa kala helay haddaba xagee laga helay barnaamijka ayaa uu qayb ka yahay soo kala qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya waa maxay khudaarta faraacinta laga soo gaaray ee caanka ka ah dalkaasi Masar ayadana waa sheeko kale xiiso badan oo aan barnaamijkeeda kugu soo xulnay daawadayaal oo inaad ku daawan doontaan soo kale waxaad ku daawan doontaan hotel sabab la yaab leh shaqada looga fasaxay dumarkii ka shaqeynayay sheekooyin cajiib ah oo ku jira oo barnaamijka qayb ka ayaan ku hayaa daawada adiguna waad ku daawan doontaan hadii rabbi qadaro sidoo kale qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya khubaro kuwa Greega oo helay mid ka mid ah madaxyadii waxyaalo ay dadka caabudi jireen qarniyaalo sida aan u dhaweyn ee Fokora qodobadaasi oo kuwa kale xiiso badan kama marna barnaamijka haweenka yar abuurka oo toddobaadkan aad ku daawan doontaan anigu Ashrafa ayaa barnaamijkeedin soo saaray halkan idin kala socodsiinaya Cabdisalaan Axmed Dhiblaabe ayaa farsamada iyo kaamirada gacaniga siinaya waana mar kale iyo barnaamijka bandhiga rajo waad mar kale isku soo noqod wanaagsan daawadayaal waxaad daawateen qodobadii ugu xiisaha badnaa ee barnaamijka bandhiga rajo oo saaka sheekooyin cajaa'ib leh aad ku daawan doontaan waa sabti taariikhdu waxa ay dul sameynaysaa 22 bisha Agost 2021 qodobka ugu horeeya haddii aan soo qabtana waxa uu noqonayaa khulfoofka caga baruur noolaa 20 qarni ayaa kala helay haddaba xagee laga helay khulfoofkani oo aan soo qabto sheekada ugu horeysa ee barnaamijka saakaha ka bogashawa qolfoofka dhan libaax dhadiga caga baruur la xifdiyay ayaa la sheegay in laga helay deegaanka lagu magacaabo Permafrostka ee dalkaasi Aziperia oo la qiyaasayo inuu noolaa muddo laga joogo 20 qarni hortood lana filayo iraadadkii caanaha hooyadii gedaha lagu tago ay saynisyahanadu sheegeen caga baruur la sheegay in lab yahay lana bixiyay Sparta ayaa laga helay webiga lagu magacaabo Semyolekh ee ku yaal gobolka Yokotia ee Ruushka sanadkii 2018 waxaana sanadka la helay mid labaad oo la bixiyay Paris sida lagu qiyaasay daraasada lagu daabacay journalka sayniska ee Quaternion Valery Bolotonikova oo kamid ah qorayaasha daraasada ayaa sheegtay in Sparta ay weli dhagorji ka muuqato qolfoofka waxa laga yaabaa oo harajeynina in qaar ka mid ah raadadkii caanaha hooyadu weli waa dhowrsan yihiin sababtoo ah haddii taasi suurtoodo waana fahmi karnaa noocyada cuntadii hooyadu ahayd Sparta iyo Paris oo laba ayaa laga helay masaafo isugu jira 15 mitir midba midka kale laakiin noloshoodu waxa ay kala horeysay kumanaan sanadooda waad sahay daawadayaal weli barnaamijka ayaa daawanaysaan qaybihii hore ayaan ku guda jirnaa markana sheekada xigta ayaan soo qabanayaa waxayna noqon doontaa hotel sabab la yaab leh looga fasaxay dhammaan shaqaalihii dumarka ahaa hotelkaas oo maanta la joogo mid ka mid ah wadamada magaca maalmihii ugu dambeeyay sameeyay ayaa ay dhacdadani ka dhacday oo ay taabanaysa aan soo qabto markan ka bogasho
iyadoo ay shacabka afghanistan bilaabeen inay dib ugu laabtaan shaqooyinkooda noloshooduna ay si tartiiba caadi ugu soo laabatay ayaa waxaa si weyn isu bedelay dhaqamada markii hore caadiga ka ahaa caasimada Kabul. milkiilaha hodheer ku yaala caasimada ayaa sheegay in 28 ka mid ah ciidamada Taliban ay cunuso doonteen maqaayadiisa taasoo dhalisay in shaqaalaha goobta ay dareemaan cabsi. eega waxaan rabnaa inaan xaqiijino amniga goobtan, cid kastana waa ay sheegan kartaa inay tahay Taliban, markana tusa aqoonsi muujinaya inaad tihiin Taliban si aan u hubino heybtiina, ayuu ragga hubaysan u sheegay madaxa ilaalada hodheelka. isfahan dheer kadib raggii hubaysna ayaa gudaha u galay waxaana la siiyay cunadii taale maqaayada oo idil ah. muddo kadib waxaa rasmi soo doontay dadkii hodheelka jiifay, balse waxaa loo sheegay in wixii yaalay oo dhan ay dhammaysteen Talibanka. ragga shaqaalaha oo markii hore garka xiran jiray ayaa timaha deysay oo ma aysan xiran 3 maalmood si la soo dhaafay ayuu hadalkiisii raaciyay. waxaa sidoo kale la sheegay in la joojiyay muusiga lagu ciyaari jiray hodheelka oo ay shaqaalihiisu ka taxadarayaan in dhibaato uga timaado arrinkaasi. shacabka xoogsatada u badan ee Kabul ayaa sheegay in muhiimadoodu tahay nabad oo aysan wax badan soo kordhin ciidanka maamulka aysan Taliban ama Mareykanka. waxa ay wateen boorar ay ku dalbanayaan in laga qaybgeliyo siyaasadda iyo waxbarashada isla markaana la siiyo xuquuqda ay mudan yihiin, lamana sheegin dumarkaasi la xiray. si walba milkiilaha hodheelkan ayaa sheegay in lagu amray inuu gebigoodaba shaqada uu ka joojiyo dumarkii ka shaqeynaya hodheelkan, kuwaasi oo tiradoodu ay kor u sii dhaafaysay ilaa 70 dumar. waxay maanta joogaan guryahooda halkaas oo ay shaqo la'aan dartii ugu fadhiyaan. dhanka kale oo ay raggu shaqeynayaan waana sharci timi taa oo aan maanta ugu salayno sheekooyin kale oo cusub ee dunidani ka dhalatay, ayaa uu hadalkiisa ku sheegay milkiilaha hodheelkan. waa tahay daawadayaal halka aan kaga talaabno bandhiga rajo ayaa daawanaysana qaybihii dhexe barnaamijka ayaana ku sii shaqeynaaye. markan waxaan soo qaban doonaa xubintii haweenka iyo hal-abuurka oo toddobaadka inoo soo jeedinaysa Falastiin qaybna ka barnaamijka bandhiga rajo ka bogasho. bismillaahi raxmaani raxiim. salaamullaahi calaykum daawadayaal, kusoo dhawaada barnaamijka haweenka iyo hal-abuurka oo aad ka daawataan Rajo Cable TV xaruntiisa magaalada Muqdisho. barnaamijka waxaa idiin soo saarta halkan idinkala soo codsiinaysa anigoo ah Falastiin Khaliif Yuusuf. mar kale iyo barnaamijka haweenka iyo hal-abuurka. haweenka iyo hal-abuurka maanta waxaanu ku eegaynaa doorka haweenku ay ku leeyihiin inay la yimaadaan hal-abuur ganacsi. waxaana marti igu ah walaashay Abyin Xasan Cadaawe oo ka mid ah gabdhaha hal-abuurka leh ee ku nool magaalada Muqdisho. kusoo dhawow Abyin Xasan Cadaawe barnaamijka haweenka iyo hal-abuurka. su-aasha ugu horeysan ku weydiinaya walaashay waxa ay tahay door intee leeg ayay ku leeyihiin haweenku inay la yimaadaan hal-abuur ganacsi oo ay bulshada uga dhex muuqdaan. السلام عليكم أولا ورحمة الله وبركاته ومحسن تهاي ولا شيء فلسطين خليف يوسف يجود هان تلفزيون كرجو لما أنتي وإذن مهد علينا يا والحالة ليه كرابايو دور آد وين كله هنا وبقول كيبا تطبعات لا ليه كرا وايو برشة وحي ترى ذا هو يو وحبرتي وبرشة وحبرتي دمر كان وحواي هو يو ayaga marka kulay faa'iido aad u weyn oo boqolkiiba 70 ay ku leeyihiin aan dhigi karnaa inay hal-abuur sameeyaan dumarka Soomaaliyeed waayo waa laf dhabartii bulshada
waa gartay marka haweenku waxaa noo sheegtay inay yihiin lafdhabarta bulshada sidaas marka ayagoo haweenka ognahay sidaas inay yihiin hormuudka haddana waxaa jirta inta badan fursadaha ganacsiga oo kale amaba hal abuurada kala duwan haweenku kama dhex muuqdaan maxaa sababa ayay kula tahay in haweenku ay ka dhex muuqan waayaan waxqabsiga bulshada waa mahadsan tahay Falastiin walaashay waa sax kama dhex muuqdaan bulshada iyadoo bulshada kama dhex muuqdaan ganacsigooda dumarka Soomaaliyeed ayagoo ah laf dhabartii ayagoo ah muhiimada koowaad oo ay yacni bulshadu leedahay ah dumarku aysan haddana ka dhex muuqan waa sax waxaa sababi kara waxaa jirto mahmaahe Soomaalidu ay tiraahdo jaamacad gabareed jika u dambayso kale waxaa u dambayso yacni waxaa kaloo sababi karto inay cadaadis badan kala kulmaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan ragga waayo gabadha haddii maanta ay wax barato oo ay ama xirfad gacanta barato ama xirfad ay barato yacni cilmi bulsho oo cilmi ay barato la barayo hooyo aab ay ku dadaaleen waxaa laga yaabaa berri markay guursato in uu yiraahdo ninkeedu guriga ii joog anaa kuu shaqeynayo waxa laala waxaad rabtaa anaad iga helaysaa ani guriga ii joog hadda gabadhii waxa waaye meerkaas waxa kale imaanaya gabadha inay guriga fadhido ama oo gurigeedu ku burburaba waayo xafiis ma aadi karay sidoo kale ama xafiisni leeyahay kama shaqeynay sidoo kaleeto ama waxay ahaday adiga waxyaabo saas cadaadis noocaas inay bulshada kala kulmaan gaar ahaan ragga Soomaaliyeed waa gartay haweenku sida sheegtay inta badan culeysyada badan waxay kala kulmayaan waa bulshada iyo ragga ma jirto miya ayagu markaasi isku dayo ay ayagu sameyn karaan oo ay caqabadahaas uga gudbi karaan hadday ahaan lahayd inay haweenku isku tashtaan oo ayagu markaasi ay gruubyo samaysan lahayn oo ganacsiga oo kaleete haddii xirfadleyda oo kaleete ay ahaan lahayd haween isku xiran oo xirfada kala duwan ee wadanka ka qayb qaata waa mahadsan tahay walaashay horta way jirtaa caqabado yacni waxyaabo faa'iido fursado badan ay uga gudbi karaan caqabadahaas way jirtaa laakiin badanaa Soomaalidaanba waxaan ka dhaxayninba xiriir badan iyo isku xirnaan badan iyo isdhexgal badan aanba bulshada ka jirinba guud ahaan Soomaaliya kaba jirinba in gabdhaha xirfadleyda oo kale ay israadsadaan ayagoo is aruursadaan yacni kambaniyaal ay samaystaan oo kale ganacsi isku darsadaan ha yaraado ha weynaado ee isku darsadaan taas horta caqabada guud ahaan wadanka haysato xiriir la'aanta iyo isdhexgalka guud ahaan wadanka haysato taasaa sabab kartaan isleeyahay u diidan teeda kale way sameyn karaan dumarku waayo hadda waxaad arkaysaa hooyooyin badan oo caruur yar haysto oo guriga joogo oo waxaad arkaysaa gurigeeda qayb kamid ah oo kale ganacsi yar ka furtay oo waxay ahaday silfiljeer oo kale inta soo dhigato jalaato kale iibinaysa macmacaan yar oo kale iibinaysa ayadoo caruurteedina haysata haddana waxaad arkaysaa ganacsi noocaas sameynaysa arkaysaa kulay waa ku dhiirigelinaya hooyooyinka Soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeedba in laakiin waxaa jiro inay yacni waxa sii wadaan laakiin waxaa jirto caqabad Soomaaliya oo dhan ka jirta oo Soomaalidu waxay jecel yihiin inay ka bilaabaan heer koro ay ganacsiga ka bilaabaan rag iyo dumar ma lagu kala yaraba taas oo qaybta waxyaabaha hoose waxaad moodaa inay 85% ay saluugayaan dhalinyarada ama haweenkuba ay saluugayaan waxay ahaday in ganacsiga hoos laga soo bilaabo hadda dadka waaweyn ama dadka ganacsiga u saaxiibka ama aad la sheekaysatana waxa lagu leeyahay qaybta hoose wax laga soo bilaabo u faa'iido badan ganacsiga qaybta ugu liidato u hooseysa laga soo bilaabo waa gartay marka waxaa leedahay caaniyo kale hagado jalaatada kale finjeerka kale guriga soo dhigato iibiso yaanyada kale yaanyada xataa waxay ka rabtaa mid waxa jirto suuqa aad ka rabta guriga albaabkiisa qayb guriga kamid ah ay gabadhu ka samaysanaysaa iyada caruurteedina haysato badanaa laakiin waxa waaye waa raggu waxay u fahmayaan gabadhu haday shaqeynayso in caruurta ay dayacmayso markaas la leeyahay iga laab albaabkan ma fahmin laakiin su'aashaadii waxaan haddii aan sii raaco ragga caqabadaha haweenka ku hayaan ma la oran karaa haweenkuba inay ganacsi samaystaan ama ay ka mid noqdaanba horumarada ama xirfadleyda dadka shaqaysanaya ragga ayaa sabab u ah ma la oran karaa
in ay haweenku ganacsan waayaan ama ay wax qabsan waayaan markii la yiraahdo ama ha ganacsadaan oo gabdhuhu ha ka xirfadda ilaan qofku maaragtay markii uu bilaabayo ganacsi siyaabo kala duwan oo u bilaaba marka inuu qofku soo baxo oo uu ganacsado maanta uu isku dayo inuu hal abuur la yimaado nooc kasta ha ahaado ganacsigu ma la oran karaa ragga ayaa caqabad ku ah raggu caqabad aad u weyn ay ku yihiin ragga waxaad arkaysaa sida hadaayaba ka hadlay gabar ama master degree ah ama batch degree ah amaba double batch ah oo waxbarasho aad loogu dadaalay hooyadii aabihii dhalay ay ku dadaaleen guursatay markay guursatay ilaa ay iyadu ninkaas ay yacni marka hore markay heshiinayaan ay contract la gasho oo aniga qof waxaan ahay waqti badan lagu soo bixiyay waqti badan soo dhumisay yacni tii wax badan yacni loo hurayaan ahay marka waxaan rabaa inaan naftayda meel mariyo hooyaday aabahay iyo waalidiintii guud ahaan waalidaantii igu soo bixisay juhdiga inta sare ay igu soo bixisana aan rabaa inaan wax uun u taro inay gabadhu contract kula gasho marka hore ma ahane raggu 70% waxay jecel yihiin gabadhu wax alaala cilmi kasta ha wadato inay guriga u fadhido waayo ayagoo u cuskanaya xafiis nin leeyahay ma aadaysid yacni masayr wax Soomaalidu masayrka ay yiraahdeen oo kale aadna ay ugu qafiifeen sida aan dhihi karo dhalinyarada Soomaaliyeed ay dhahaan xafiis islaameed kama shaqeynaysid dukaan carwooyin iyo meelahaas oo kale iyo ma gali kartid istaaladoo kale to hadda gabdhaha u badan maada gabdho waxaad arkaysaa xataa oo gurigooda ku burburaayo ma shaqo tagi kartid iyo waan shaqo tagaya way gabadhaas waxay rabtaa xeed waqti badan lagu soo bixiyay waqti badan ay soo bixisay waxay rabtaa inay nafteeda meel mariso inay waalidiintii ilaa intaas waqtiga ku soo bixinayay oo wax walba ku soo bixinayay waxay rabtaa inay yacni mira dhalkii ay toosiso maanta hadda wiilkuna wuxuu okrabiyaa asagana inay guriga uun u fadhido aysan nin la socono aysan nin la shaqeynino waa asagoo u cuskanaya masayr indhala'aana marka wallaahi aada la isugu cakiran marka abyane culayskaas marka uu jiro sidee marka la oran karaa waa looga gudbi karaa culayskaasi haweenku ay dhanka ragga kala kulmaan والله باي وعيجلين بدن لسماي وحنا سلاي أنا هذا إذا وعيجلين بدن لسمايو يعني فإذا كجر تلا فيريو قبله إني يعني قبله هذا فيري هذا قبله ما أنت حرف الله هذا هاي ما حفرتك عن هالنقطة أما هالنقطة قوة أو مسكحية يعني علميا هالنقطة قبله هذا ما أنت لا هذا هاي هذه أقون عرورتي أقون نقطة كله haddii ninkii iyadu ay kala tagaan iyada caruurteeda ay dhabar ku ridato kale waxay noqonaysaa hooyo ismeel marisa caruurteedana wax caruur yani xataa ugu yaraan caruur yani soo saarta cilmi ku barbaartay oo yani waxyaabaha cilmigu ka reebayo iyo fahmayso ku barbaarisay noqonaysaa soona saarta iyadu yani ilmaheedana soo saarta iyo nolosheedaba soo saarto yani ismeel marisa ay noqonaysaa marka waxaan isleeyahay kullay wacyigelin badan la sameeyo يعني دنك وناجا أون لقى فيريو فإذا ما دام أي هايض أي ورشة هاي ورشدنا مركز تا إني يعني وح فيوس أو صارتو أما أي هدو أيضا اسمه المرسو كلا أي كوفي عن تهاي إن دين عسلقة إيجو مودا هانس وما عليه ده برهق يدمر بين دين عسلقة إيجو أساسا لو وجود بكران سلايا وعيجلين بدنا للسمايو هذه أدبا ما صنطة إن أبينا سؤال شحكتان كويتيني يا واحد تهاي إن هوانكو إن ayagu maxaa u diidaya in ay markaasi si ay caqabadahaas uga gudbaan ama ay u yeeshaan ganacsi isku xiran in horta ayagu haweenku ay marka hore dib isugu laabtaan ay yiraahdaan anaga haween hadaan nahay maxaa inoo dan ah inay groupyo samaystaan oo ganacsiyada muuqda raggu ay ka shaqaysanayaan ayaguna inay qaybtooda ka qabsadaan oo shaqaystaan oo bulshada ka dhex muuqdaan waxaa inta badan Soomaalidu tiraahdaa gabar wax baratay waa bulsho wax baratay dhanka markaan ka fiirino waxbarashada kale haweenku door weyn ku leeyihiin marka maxaa diidaya inay ayagoo xirfadihii ay barteen ka faa'iideysanayaan haddana inay ku ganacsadaan wallaahi abaayo waxaa saan bahdaayba ku sheegay yani waxaan jirin bulshada Soomaalida guud ahaan caqabad Soomaaliya oo dhan ka jirta waa istaan islaahay aniga waayo is-aaminaadii Soomaalida horta aad u yaraatay
waxaa kaloo yaraatay xiriirkii ka dhexeeya bulshada Soomaaliyeedna loo waayo lama dhihi karo laakiin waa aad u yar yahay marka gabdhihii inay isbayso waa iyadoo haweena rag waa aad u karti badan rag waxa waaye waa kartidooda iyo waxa farayso inay yacni meel kasta oo ninkan oo la shirkoobo oo wax yacni waa nin rag u yahay gabar marka iyadoo iska kontonley ah oo kartideedu yacni isleedahay armaad halkaas ku qasaartaa oo armaad yacni lagu dhacaa armaad meeshaas aad kala kulantaa iyadoo isdhehayso oo ayadii taas ay u qaas tahay dumarkaba u qaas tahay haddana waxaan jirin isdhexgal bulshada oo aad u badan aan jirin saas u sii fog aan jirin marka taasaa sababi kartaan isleeyahay inay dumarku ay yacni xiriir ganacsi iyo gruubyo iyo bulsho iyo kambaniyaal ay dumarku bis leeyihiin ay haatan teeda kale waxaa jirto yacni waxaa jiro waxyaabo cabsiyo kale oo ay dumarku qabaanna way jirtaayo guud ahaan wadanka waad fahamsan tahay hadda waxaa waaye haddaan qoray la isku dhicin xataa qalina la isku dhacaya marka handadaada dalkana way badanta aad iyo aad waxaa jira gabdho wax barteen oo xirfadii ay barteen noocyo kala duwan ha ahaato noocay tahaba ku shaqaystaan oo shaqooyin kala duwan qabtaan marka waxbarashaduna ma la oran karaa qayb ayay ka tahay haweenku inay helaan fursado hal abuur oo ganacsi waxbarashada oo dumarku ay barteen soo maaha marka loo fiirinayo gabdhaha cilmiga yacni cilmigu waxa waaye wax badan oo ka celinayo Soomaalida waxay tiraahdaa aqoon la'aan waa iftiin la'aan hadda leerarkan damino oo mugdi meel mugdi ah inaad ku socoto iyo inaad hadda iyadoo leerkan shidan yahay halkan ku socoto yani way ku kala fududaanaysaa socodka aad soconaysaa ku kala fududaanayo tusaale marka cilmigu waa iftiin lagu socdo oo naftaada iftiin u ah dhiirigelin u ah markii gabadhu ganacsiga gasho kale yani caqabadaha ay uga gudbi caqabadaday ku timaado yani fursad ay uga gudbi kartay cilmigeeda ka dhaxelaysaa waxay ka dhaxelaysaa dhiiranaan يعني qaabkii ay yani space ay u fahmaysaa gabadhu laakiin qofka hadaysan cilmi lahayn oo aysan waxba baranin waa un qof indhe xiran oo kale aad iyo aad waa gartay marka aqoontu waxa leedahay kaalin weyn aad iyo aad kaalin weyn ay ku leedahay guud ahaanba waxaan soo jeedin lahay inay laabaan gabdhaha dumarka iyo maadaama aan hadda dumarka ka hadlayno bulshadoo dhan waxaan u dirayaa inay waxbarashada aad loogu dadaalo aad iyo aad dumarku inta badan waxaa la yiraahdaa waa iska xishood badan yihiin marka waxaa laga yaabaa waxyaabo badan oo ay ganacsigii oo ay fursado u heli lahaayeen inay yiraahdaan adigoo gabara kuma habboona inaad meeshaas ka shaqayso oo ayagu ay dhexdooda ay markaasi isku aamini waayaanba isku arki waayaan inay yihiin dad u shaqayn kara aad iyo aad way ka waran taas maxaad ka leedahay والله way jirtaa horta xishoodkuna waxa waaye waa shay muhiim ah oo in la xishoodo waa dhaqankeena nabarayna laakiin shaqadii waxa u deenaynaa laakiin shaqadii hadaad ku yani waa adiga waa un laba daran mid dooro xishoodka ha laga tagana ma dhahayo oo uma faray gabdhaha ma faray in xishoodka laga tago in yani Soomaalida waxay ku mahmaadaa afkaago guran kuma dhalo laakiin geelaago guran wuu ku dhalaa marka يعني qaboobida iyo afgaabida saaidkaana uma fiicno xishood daradana uma fiicno marka normal ha laga dhigan dhihi lahaa aad iyo aad fariinta ugu dambaysta walaashay aan ku weydiinaya waxay tahay haweenka jecel hal abuurka ganacsi inay la yimaadaan ee wax qabsadaan haddana aanay u suurto gelin maxaa kula talin lahayd haweenkaasi way jecel yihiin inay sameeyaan laakiinse fursadaas uma aanay suurto gelin waxaan kula talin lahaa horta dumarku waa laf dhabarta bulshada dumarku inay yani waa warshadii bulshada inay yani wax soo saaraanna way wanaagsan tahay maskaxiyan iyo waxay aheeday dhaqan ahaan iyo wax walba inay dumarku wax usoo saaraan waa kaalin aad muhiim u ah noqonaysaa Soomaalida marka guud ahaan muslimka baan dhaho marka waxaan u diri lahaa in qof kasta oo hal abuur ama Ilaahay u hibeeyay oo hibo hal abuurka waxa jira hibo Ilaahay bixiyo mid ah oo yani waxbarasho ku timaada aan ahayn hal abuurka marka midkii Ilaahay ku hibeeyay oo hibada ku siiyay iyo midkii aad wax baratay xifrad wax walba oo ay tahay xifrad waxbarasho ama xifrad waxbarasho noqoto ama waxay ahayd mid dabiici oo Ilaahay ku dhaliya noqoto
qofkii ilaahay siiyo oo is aragtaba inay leedahay يعني meelaha ku munaasibka inay ku soo bandhigto taas fariin aasaasan ugu diri lahaa aad ba mahadsan tahay haweenku waxaan arkaynay maalmihii la soo dhaafay bandhigyada buugaagta kale in haweeno badan oo ku soo bandhigeen buugaag ay qoreen agabyo kala duwan kuwa dhanka ganacsiga markii aan eegno soo bandhigay arkin ma la oran karaa waxaan joognaa doorkii haweenku ay wax qabadkooda soo bandhigi lahaayeen oo la arki lahaa aad iyo aad haday ahaan lahayd inay ganacsadaan haday ahaan lahayd inay hal abuurka dhanka qalinka ay ahaan lahayd dhinacyada kala duwan adiga aad iyo aad waa sax waaye waa waqtigii aan joognaa doorkii aan joognaa ay soo bandhigi lahaayeen gabdhuhu sidaba muuqatana waxaad moodaa inay maalmahan waliba dhalinyarada gabdho dhalinyaraha ahaan gabdhaha ee bandhiga buugaagta oo kale waxay ahayd xifradaha kala duwan oo kale oo يعني waxyaabaha farshaxanka oo kale iyo waxyaabaha gabdhaha soo bandhigay dhalinyaro u badnaayeen dadkii 30 sano burburka wadanka dhashay oo akaayeen marka ka faa'iideysteen burburkii waxa waaye yani waqtigu waa 10 ku qaadanaysa wax walba moogtahay marka waa kulay way noo bilaaban tahay in hore loo sii wadaan rajeynaya insha Allah waad mahadsan tahay waa tahay daawadayaal guud ahaanba intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii haweenka iyo hal abuurka oo halkan aan kala socodsiinayay waxaad ka daawanayseen Rajo TV xaruntiisa magaalada Muqdisho barnaamijka waxaa maanta marti igu ahayd walaasheen Abyan Xasan Cadaawe oo kamid ah gabdhaha da'da yar ee hal abuurka ah tan iyo barnaamijkan mid lamid ah intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo waad sahay daawadayaal barnaamijkaasi ayaa ugu dambeeyay barnaamijkeena bandhiga rajo xubintaas aan iraahday haweenka iyo abuurka guud ahaan inta ayaan jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijkii aan soo saaray anigoo ah Ashraf Abdulbaasid Macallim Xasan Cabdisalaan Axmed Diblaawe farsamada kaamirada gacaniga siinayay inta barnaamij ceenkani ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo